نعس ويا روحي هوين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سلام يا ملك استاجوكتان ولا لها الصوماليات إيه كحولن بيشكي حمتك القعل marka hore sheerta iyo leeg iyo committee ba soo bixiya waad mahadsantihiin warcaawi action ana waliga shimada uwan baan u wado xogaa masqusqusay war ma haysaan masqusqusay soo dhawaada insha Allah sheer gareeya nacala shiidaan ku yaala sheer gareeya oo gaarsiiyo hooyooyinka Soomaaliyeed ee single mother-ka ah oo ilmahooda korsanaya oo haddana dhibaatada adduunka lagu hayo ilba ihaya ma oydaaba ihaysa waa hooyo Soomaaliyeed oo la dhibaateeyay 5 ciyaal soo korsanisay ninku ilmuhu ku furay la rafaadisay haddana kibir lagu gubay aqalkeedii hantideedii xoolaheedii wixii gurigeeda u dhaxyaalay hanba u fiicnaadan ah baa xumaadaan caawa qaawanaan ka taagan laba ciyaal ay dhashay oo laba wiil ahna lafahoodii iyo jirkoodii iyo cadahoodii hururshooday laga soo qaaday meesha ay ku gubteen dhakhtarkiina imanka ayadii iyo maxaa la dhahaa inan yar ayaa la waliba inanta la yiri ma garanaysaa kulaylkii dabka wuxuu u dhaadhacay sanbabadii wadnaha iyo beerka inay ka kacayso u malayn mayno hooyaduna aad ayay u liidataa iyaduna dhakhtarkay taala iyadoo jirkii meel kastaba uu ka galay ma garanaysaa biyo وهو Soomaaliyeed oo ka soo jeeda beesha Madibaan amba beesha Maxamed Gargaarta hawiye sida qof u yaqaano barasho wanaagsan hooyadaas waxay degan tahay Ethiopia Soomaali maxaa la dhahaayay galbeed waxa gubay waa inoo sheegi doona insha Allah ilaahay idankiisa goor habeenimo ah saacada tahay 12 iyo barkii habeenimo oo habeen jimco ah ayaa la gubay dabku iskama kicin waxa alashan waa qolkii seexanayeen waxdaba uma dhaxoolin سبحان الله وان أرجني نين ناكتي سجبتي لكن واحد قلتي ناق نينكي أيضا فري قبي بيش كي حمتك لك عبطة وان كعرض دارنا يا ضد بدن بعد مسلاء هدي واحد صوق قرآن بواحد صادق كليجي هاي مودنا ده يطفنا هرانا وين يقول شيء أنا وحمن رادية ترى وحي حقيقة صاهل أنا ما صاهد له وحي ويقدر بإيمانه يعني واي فاهم كيف صاهد لكراية فاهم كرتان wixii jeeran soo hubsado xaqiiqdii aan soo helo warkii aan ka daba tago aan saliyo baarsa u raadiyo ma soo dhigo marka soo hadlo subhanallah waxa weeye hooyadaas waxay deganaysan horaba inoogu sheegay dhulka Soomaali Ethiopia caasimadda may deganeen laakiin waxay deganeed gobolada ku haraaraysan gobolka Jarar Soomaaliya dhaha gobolka Jarar bay ka tirsan tahay meesha ay degan tahay waxay ku jirtay Soomaaliya wad dareemi kartaan Ariish كسميسان محل دهاي دوقة يوم محل دهاي يسرب يعوس يدور حاجة وفهم سده تلوينك أي دجنيد هو يدا واحد قبيل المدينة أو سوي سلب باشية أو باش المدينة أو باش السعادة يا قبي أيضا باش المدينة باش السعادة بيكسو تيدي هو يدا شير جريد نعلى شيء دانكو يا لسواي شير جريد أنت أنا ها شرر وين thank you boy شير قرية ديك اليوتيوب كي جان سكادو يوتيوب كابل عكوا هلي عقل العقل كهلي ما يشير قرية أنا وحن ربع إن أورك إني سوق بيو ما دام بيش كي قرار خدنا للصور ديك سوري إن إني سوق بيو حصحن هيو إلى إذن كيسة إلى هاي هو بوجر ديو أنت كلمة إن الله ونحرسته هو يلا أنا ودي بنت مانتا ميل مذوبي فردا عقل كي هنتدي علمه وحكسته ويسكر مركب كوبا حبه هنت إناد وسود عسان إنه إلهي عافيه iyadana ma garanaysa ilaahay u boogadhayo iyadii inanta u hadhay ma garanaysa may hadhin laba cilmo kala jira share garay please gaarsiya dumar Soomaaliyeed oo hinaasan baa jira hinaasa aniga waa ma jeclaadeen ninkayga naagu furay amba naag dambe inuu iga daba keeno laakiin ma gubeen ana ka tagi lahaa ka tashan lahaa afar baan ninka loo baniyay diinteena aan u banaysay laakiin naftiisana ma dileen qofku keensadayna ma dileen laakiin waan ka tagi lahaa intii tabarteeda waan ka ordi lahaa gabadhu waxay ahayd gabar reer ahaan idin sheegay ninkii 5 ciyaal markuu ka dhalay ay kala tageen calafku waa dhamaaday dhihi mayno sababiyo maxaa loo kala tagay duruufiyo xatoona ma sheegayno laakiin calafkii baa kala dhamaaday labadii qof markay ay kala tageen hooyadii waxay noqotay hooyo ilmaheedii ka adag korsanaysa ilmaheedii ma garanaysaa markastaba jecel inay horumar u gaaraan labadii ugu waaweynaa waxay sameysay meel waxaa jirta border ah oo bishii ilmaha lagu xareeyo oo bishii hal maalin amba laba maalmood lagu soo daynayo
arkisid borderkii bay ku xaraysay hooyada labadii waaweynaa hadda labadii waaweynaa weli looma sheegin inuu reerkoodii rogmaday inay walaalahood dhinteen hooyadood iyo mid kalena dhakhtar ka taalo gurigoodina u baaba'ay waa laga qarnaya ilmihiisina qalbigooda oo xun noqon sidaa daraadeed hooyadii labadii ciyaal ahaa iskuulka meeshaas borderka bay ugu xaraysan yihiin 3 kale haysatay 2 wiil oo yaryar iyo gabar goor habeenimo bay iska seexdeen jimco ah bala may qabin hooyo iska adag sidii jaarkooda ku waramayaan walaalaha la degan Soomaaliya Itoobiya amba ogaadeen sidii loogu soo warameen gabadh ubadkeeda ka adag ma garanaysaa asluub leh ma garanaysaa jaarkii islaamkuba ka amaan helan afgaaban inay tahay soo cadeeyeen gabadh iska shaqaysanaysa awlaadeeda karsanaysa waa dareemi kartaa hooyo Soomaaliya joogto 5 ciyaal lagu furay waa dareemi kartaa qurbaha inagoo joogna la rafaadina ilmaha aabuhu markuu ka maqan yahay gaalka saad uga ordaysid laakiin ka waran hooyo Soomaaliya joogta gacana ka sarreeyeen inkastay walaasheed Ameerika joogto wax u dirto naxdin badana xalay ma seexan ilaahay ugu ogyahay inaan baa igu tiri iska daa klibka had bari baan ku soo diray xamdi may baan ku yiri ma seexnaya hadda ii soo dir klibka aan arkay anna habeen daba ka hadlaya hadaawan lahayda wallahi inaan seexan xumaan naxdin markasta oo yoor imanay dadkii mididkii muhiimaddu waxay tahay gabadh baa waxay u soo iibsatay gas petrol gabadhu marka petrol soo iibsanayso waayo qabiilkeedu waayo maxay wax isku yihiin xagee degan tahay halkay ka soo jeedaa ninka maxaa la dhahay beelaha ma dhibaan ninka naagta kale maxay isku yihiin isguursadeen adu calaa kulli xaal gabadhan markay kala tageen ayuu wuxuu guursaday gabadh kale waayo jeceshina inay sheego waa sheegaya laakiin heesta way kala horeysaa heesta geer way kala horeysaa gabadh buu guursaday beel bay deganayd naagtan shaashaxdeed iyo fariidnimadeeday ka yaabtay way ka hinaastay naaxush lama farximo badana juqdaan bay haysaa ana ceebayn la ku dhalay marka gabadhi waxay samaysay walaalayaalow ilmaheeda naag korsanaysa oo iska adag oo fariid ah ayay ahayd way u quuri weyday nolosha ay ku jirto way u quuri weyday ilmaheeda ay kala korinayso ay qaarna meel border ku xaraysatay qaarna ay macaamilad suuxii geysato casarkiina ka soo kaxaysato ay gurigeedii nolosheeda ay ku magaranaysa ku toosan tahay gabadhi waxaa la sameeyay gabadh kala soo iibsatay petrol xaafad jaarkooda ah aan ka fogeyn oo beelaha walaalaha ogaadeenaya ayay ku xasaysatay way ka tagtay gabar baa fiidkii timid xaafadii la keenay shirkaanka petrolka ah way aragtay oo iyadna jaarka ah oo petrolka meesha yaala muxuu yahay iyo heblaaya leh waa ka laabatay 12 habeenimo iyo bar markay ahaydna reerkii ayaa lagu rusheeyay oo malayn maayo qof dumar ah inay kaligeed qaadi karto shirkaan petrol aqalka ku rusheyn karta rag baa la socdaa anigu filaya oo buushka dhigidiisa gaarsiiyay buushku maxaa la dhahaa cariishku waxaas dhakada ka saarnaa maxaa la dhahaa bac Soomaaliya way fahmaysaa bacda ruubabka la saartay amba wadankeeni badal la isticmaalo hadee dadku ku jiraan buushasha ama sandaqado bacdiba ilmaha aad u gubtay oo bac dhalaashay waa dareemi kartaa inay ku soo da'ayso maxaa la dhahaa markuu dhalaasho inay dhulka ku da'ayso dhulka ilmihi ajiifay duurka waa dareemi kartaan amba cawska amba sarabka ma garanaysaa asaguna inuu dabka aan la tusin oo markiiba ololku hawada isla maro hooyadaas noloshay ku jirtay iyo siday ahayd baa loo quuri waayay waa amba ha loo soo heshiyo 5 qof oo xiran hadda 5 qof ninkii iyada furay naagta kala qabay naagtii la tuhmayay inay gubtay naagtii petrolka gurigeeda la dhigtay naagtii soo sheegtay shanta way xiray maxkamad baana la tigsanaya insha Allah iska caytamaan walaal wixii caytamaan wali qabiilka ma sheegin laakiin waa sheegaya inteera ugu daawana saala soo yacdeen waa inaan qabiilka sheegana naagta xugubtay sama ishamadii baa u taaglaan ma soo bedela wax ya inaan biin ku xorey diga raali noqdo marka muhiimaddu waxa ay tahay 12 iyo barkii habeenimo markay ahayd baa reerkii loo yimid waa hooyo carruurteedii cashaysiisay nabad ku seexatay farxad ku seexatay ilmaheedii oo maanta aan aabahood u joogin ehel kale u dhaweyn maxaa la dhahaa gabadha aabaheed ayaa xoogaa u jira inanta carruurta dhashay ee magaalada la degan aabihii dhalay kabacdi waxaa la sameeyey
hooyo waa dareemi kartaa Soomaaliya nin u joogin aan qof kale la seexanayn inay tuug amba wax kale balaayo ka cabsanayso aqalku waxay ku quflatay waad fahmi kartaan silsilad iyo quful hadduu xandaraab ku jiri lahaa gurigu amba gurigu ibaab fiican una ku xidhnayn adag dabka markay dareentay hooyadaasi baabku way soo jibin lahayd wayna ka soo bixi lahayd ubadkeedana way badbaadsan lahayd laakiin hooyadii waxa ku dhacay aqalkii bay qufushay hooyo ubadkeed intii aqalkii qufushay furii meel dhigtay ma fahmi kartaa fiidkii baad qufushay furii ma miiskaad saartay ma barkinta hoosteedaad gelisay ma dulucaad gashatay waad ku seexatay ma meel baad sudhay halkaad ka helaysaa mucjisaa ku qabsatay habeen badh baad ololaysaa ubadkaagii ma badbaadin kartid hooyo kule hooyo i badbaadi leh ma badbaadin kartid ubadkaagii waayo furihii adigoo imika bartan qufulaad la adahay meel dhigtay hooyo single mother oo ilmaheeda ku korinaysa sida iyo rafaad sidee bay u helaysaa qufulka ay aqalka ku qufushay furihiisi naxdintana ku dhacday aqalkiina dhakada sare kow ka soo ololay oo xagga sare ka soo daadanaya dabkii sidee sheeg karta ma badbaadin karto hooyo kasta iyo nin kasta oo geesi ah ma badbaadin karayo hadduu aqalku kugu qufulan yahay oo dabku qabsaday Allahu akbar been sheegi maayo mana raba qabiil Soomaaliyeed inaan gafo arrintu siday tahay xaqiiqtana tahay ayaan inagu marinaya telefonkiina waana ku soo qoray waxa la qarqariyo qurun baa ku jiray qof kasto islaam oo danqanayo jirkiisu danqanayo waxa gabadha aabaheed baa ka qabanaya telefonka oo dul fadhiya oo cad ah oo ilmihiisu dul fadhiya oo ilmuhu ooyaya markaad la hadsid ooyaya hooyadiyo ma garanaysaa inantiisi oo dhaawac bartan jiifta ilmuhu awowgu ahaayo bartan nafta iska gurayso laba kale hadda la aasay reer dhan oo rugmaday aqalkiyo dambas cad aan waxba u oolin uu iska ilmeynaya markuu kula hadlayo awowgu hooyadii aqalkii quflatay waa seexatay ilmaheedii bay nabad ku seexdeen way iska qasheeyeen way isa seexdeen 12kii iyo barkii habeenimo markay ahayd ayuu dabka masiibada ah la sura hal mar waxay ku wada heshay aqalkii oo ololay oo dusha ka soo ololay oo meel kasta ka soo ololay oo jaga ka kacay oo ku soo daadanaya carruurtii keebay qabata keebay diisa carruurtii yadii way arki waayeen dabka huliciisu hal mar ku soo daatay bacdii ku soo daadatay inanta weyn iyo iyada iyo maxaa la labada dhintayba way arki waayeen qiiqii iyo kulaylkii iyo maakrasa adduunka lagu cadaabay waa hooyo adduunka lagu cadaabay qiiqii wixii baa indhihii ka galo sankii ka galay qofac oo him baroor carruurtii qaylo sidii wareerkii ku rugmaday jaarkii adnadu qof waliba ugu hurdaa waa 12 habeenimo iyo badh Soomaaliya waa dareemi kartaa haddana ay tuulo tahay maha caasimad meel tuula weeyaan tuulana sagaalka maqaaxida ugu dambaysa sagaalka ama 8 la xiraa waa dareemi kartaa intii jaarkii walaalay jaarka meesha joogay intay badbaadin karayeen way badbaadiyeen wayna ku ordeen warba ambalaas waca war sidan waca war xabashida inoo waca war sidan yeela ciida lagu baqtiya shirkaamada biyo jaarka ku baqtiya si kasta yeela wadin waadog jeeray reerka ku horurshoodeen oo hooyadiina siday saa u lahayd dabka iska caabi carruurta ka caabi iska celi carruurta ka ceesho dabka u lahayd iyadii carruurta isku hoota dhaceen Facebook wuu diiday markaan soo galiyo wuxuu sameeyaa filimka markaan Facebook soo galiyo wuu diidayaa in la daawado camal dadkiyo baqtiinaya carruurtiyo makarasa nafla caarig mid ahaan ka soo booday aqalkii markii baabkii la jabiyay ay dhalinyartii baabkii hareeraha ka jabiyeen nafla caarig banaanka uu ku soo dhacay mido war ilmaha baqtiyo uu saa u galgalanaya tisamahan dul san nafta uga dhacday anagoo aad arkay videoga daawanaysaa nafka uga dhacaysa okay soo qofan iska balogaya waan jeclahay inta aan leefka ku jira inaan cadawgeyga arko bartan san u baloogo qofka labadan baloogo waxa la sameeyay videoga isagoo gooskoosa la soo diray inantii dhakhtarka ku jirta hooyadii dhakhtarka ku jira iyagoo gubanaya iyagoo la magaranaysaa ay hooyadiyo la soo badbaadiyay war gabadha baqti ay ordayso war gabadha baqti iyo ilmihii yaraayo intuu soo baxay nafla caarig alla nafta macaana aqalka saa intuu soo bodo saa banaanka intuu kala gashay saa nafta uga dhacday ayagoo labadii meyd inta la soo qaaday la isku saaray waxa bay YouTube-ka iyo kordhiya waayo Facebook-ga wada la garanay laakiin YouTube-ku ma dhili garanay YouTube-kayga ku riday YouTube-ka xamti gacal baa ku qoran hadda aan ku ridaya kana daawo insha Allah silaas waana xasuus wuuna ugu jiraya xasuus weeyaan adduuniya aakhirana Ilaahay baa u hiilinaya reerka sida la qalay ala kulli xaal reerkii wala baabiyay wala gubay yaa gubay hadaba bal yaa gubay
Soomaaliya ayaa gubay ii sheega ma ogaadeen baa gubala degan ma dhibaan kala jaara la degan yaa kaloo degan meesha yaa jooga yaa gubay fahmi kartaan waxa gubtay naag ninkii yada furay ilmaha aabahood naag uu guursaday naagta uu guursaday waayo waa qabiilka la dhaho mareexaan waliba ma aha lafaha waaweyn ee mareexaanka ee waa lafaha yaryar sax wala la Soomaali laf weyn laf yar bas ku faantaa sax wala la reerka la dhaho hawraarsame amba habar yaaqub amba boon mareexaan nimba aniga inima bixina walaalkiin ba inay bixiyeen ma raba inaan u gafo bela Soomaaliyeed laakiin inta dinaaniistina taan inagu sheegay runta ma boon mareexaan baa la dhahaa ma habar yaaqub baa la dhahaa ma waxa la dhahaa maxaa la dhahaa mareexaanka lafaha waaweyn okay waya reerka gabadhii sidii bay gabadhii ku gubtay waa hinaasa shaydaan baa ka adeegay qoladii baqtiinaysay ogaadeen bay ahaayeen jaarka ogaadeen baa u kacay waagu markuu habeenkii markay saa dhacday ayaa la soo orday waxa la sameeyay booliskii waxbaa yimid oo shirkaankii lagu gubay reerka oo caawa fiidkii reerkan jaarka ah oo ogaadeenka qalkooda yaalay ayaa gabadhii fiidkii soo aragta booliska waxay ku tiri shirkaankan wuxuu yaalay maxaa la dhahaa reerka jaarkan iyo fiidkii yaalay isagoo buuxa oo maxaa la dhahaa baatroolka uu ka buuxa oo markaan iri yaale waxaan baatroolkana hagad ka keenteen yaalana waxay igu dhaheen heblaaya ayaa tiri subaxay naga qaadanaya halkan soo dhigatay gabadhii baa la kaxeeyey waxaa loo geeyay qoladii ogaadeenka ahayd waxaa la yidhi shirkaankan ma garanaysaa halkan baatroolka inii yaalay Soomaaliya ciid waa dhul xariir ah wad ogteen shirkaanku bartu qotamay fiidkii aqalka dhinaciisa iyo meesha ka soo qatay reedkii adduunka baa la arkay no muska dhigtay waa maxay baa xaga ka keenteen yaa gubay dadkan annaga gabadhaasa noo keensatay hawraarsamaha ah fiidkii waxay halkaas dhigatay ardaaga iyadana qaadatay kulli ma garanayno dhab reerkina waa la qabtay nagaa reerkina noo geeyay ninkii ilmihiisii murmuray naagtiisa murmuray furay laba ciyaal ku dhinteen qayladii baroorta intii la ka dhacayso guriga jiifa naagta la jiifay intay gubtay musiibadii intay reerkii gubtay afka ood u saartay la dhinac seexatay ay askartu u tagtay islaameenkiiba wala soo qabtay tii sheegtay iyo labadii faamilo isqabo aqalkooda la dhigtay baatroolka iyo labadii isqabo oo ninkii inantan maxaa la dhahay furay iyo naagtii gubtay shanta waa la xidhan hadda shantiiba way xidhan yihiin cadaalad baana ay doonaysaa gabadha hooyada ilmiheedina ka baxeen ma garanaysaa gurigeedii hantideedina ka burburtay gabadha la gubay waa mahadsantiin waa gabadh madhibaana gabadha la gubay waa gabadh madhibaana oo sacad madhibaanku waa jifooyin badan waa sacad reerka sacad la dhaho gabadha waxa gubtayna waa gabadh hawraarsamo ah amba habar yaaqub amba boon mareexaan lafaha yaryar runta waa tagarbaashkiina weynii soo socdaa haddii si degdeg ah wax uga qaban weydaan caruurtaana magtooda dhiibi weydaan ya magba maha loo dilaba anigu gubba wallahi aniga ma samreeyo oo bilaahi ma samreen oo tallaahi ma samreen naagta nolosha igu gubtay wallahi naanan samreen markaan la gooran ladnaado markaan ladnaadan ana gubi laha sida ilmahaygu ku gubtay oo ku dishay ayaan ana marin laha ilaahay ugu ogaa inaana siniin miniin haddii ka soo wareegtay inaanan daayo wallahi inaanan daayo فهميسا anigoo yar oo weylo la suntayo gowla laala meelo dhaha jooga ahooday waxay tahay halka waxay gaga yaala marka saas oo kale wax yaro saas oo kale madow madana waxay tiri waxaad hay qalqaali baad hay lo bay tiri lo weylaha yar yar ayaa la suntay gabadh habar jeclaa ayaa waxay tiri markasta dabkii baad ka baqtaysaa bay tiri dabkii baad ciid ka gashataa wax yar baad hay marka deen wada marba dabka ka baqtaysa anagana weelina wax xidhan bay madbaxa madana cadaado mar hore inta wax lagu gubay la geliyay dhulka hoostiisa ayay saaka ku tiri halkaas raac ka siisa na markan weynaadan arsadaan waa la sugay markii la iga sheekay markan kuray way noqday ayaan la eegtay anigana wallahi waan ka jartay waan gubiyaan madaniisi waan ku dhajiyay marka muhiimadu waxay tahay hooyada saa ilmeeda sida loo dilay in iyaduna maanta
تيدي شينا راحيساتو المهدي يدنا أي مرموران خلاص واي مركا dadka soo qoray ogaadeen baa gubay iyo ogaadeen baa dilay beeshiga armiska ka waxan leeyahay walaalayaal anu jaran wax soo hubsado aan wax meel ku togiyo ma ka hadlo kibirna oo ma soo dhigo saaka karbaash baan soo qoray sawirkayga intaan soo saartay oo maxaa la dhahaa joker ma yahay surmidi iska soo dhigay waa karbaash caawaban marka sheekadu waa taas walaalayaal intaas inuu soo gabagabeynaya waxa weeye hooyooyinka Soomaaliyeed ee single mother-ka oo ilmaha inta lagu furay haddana dayacan ubadkooda la dadaalaya ilmahoodii qaar boodhar ku xareysanaya in aqalada iyo nolosha loo guuri waayo lagu gubo maxay taa naagtaas maxay ka hinaastay waxay ka cabsatay iyadii waxba way u dhali weyday ilaahay awlaad uu ka siin waayay inuu ninka naagta shanta ciyaal u dhashay inuu ku laabto haddana isku reerka yihiin madhibaanka isku yihiin saacadka isku yihiin inay ku laabto daraadeed ayay gabadhaas ninka naagtaas u gubtay carruurtaas كل دولة إثيوبيا محل ده سومالي ديجانك سومالي إثيوبيا أم بسومالي قلبي أم بلوغادينيا ده سيكيشن يقدرنا أم بس دي دولة دي إن أنت عاشوا لكفشة دولة الصومالي أم الدولة ده محل هاي بدلين يودي شيء محل ده هم كتيرين لاقاتين نقانين محل ده هاي أم بمحل ده هاي ده كلي شيء كله كسيدين ولو شوغا لكن waxaan ku sheegay hawraarsamo marka tahay Ethiopia marka la joogo ana kaaga xinay badan hawraarsamo baraha bulshada waa isku joogna hawraarsamo laba naagood isku jawaab waad ogtihiin waad joognaa baraha bulshada anaga dalada naharsanayeen baad ahaydeen ma dhibaan daladaas u harsanayeen hoostiisa hoose ayuu ahaa ma dhibaan markuu mareexan in soo eriyo midkii mareexanka inuu yiri dadkii hadhayay baan anaguna runta marka inay sheegno waana la isku joogaa arintana رب يا ربي بقول تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.